foolxumada muuqaalkeeda iyo dadka oo ku jees-jeesa habka uu Ilaahay u abuuray darteed ayuu u cayriyay hooyadiis. Markii ay dhimatay, waxay uga tagtay fariin sababtay inuu ooyo noloshiisa inta ka dhiman. qiso ay indhuhu la ooyayaan ayna macquul tahay qalbigu inuu u dhinto shallayto awgeed. Waana qisada maamo waayeel ah oo wiilkeedu uu cidleeyay kadib markuu uga guuray magaalo kale. muuqaalkeeda qariibka ah dartiis oo naftiisuna aysan jeclaysan, laakiin intaysan dhiman ka hor ayay uga tagtay arrin la yaab leh, taasoo sababtay inuu mar kasta ooyo. laakiin intaada muuqaalka daawan ka hor waxaan kaa codsanayaa inaad like saarto, channelkan aad subscribe saarto oo gambaleelka u furato si ay kuugu soo dhacaan muuqaalada xiisaha badan oo halkan aan soo gelino. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan ku soo dhawow muuqaalkii oo faahfaahsan. waxay qisadu ku bilaabanaysaa hooyo Illa oo uu Ilaahay ku irsaaqay wiil, waxayna ku sabirtay tarbiyeyntiisa kadib markuu Ilaahay ka oofsaday ninkeedii, mana uusan uga tagin maal ay ku noolaan karto. laakiin waxaa lagama maarmaan ah hooyadaanu inay soo shaqaydo waxay ku noolaadaan iyada iyo wiilkeeda. suuqyaasha ayay wareegayeen iyada iyo wiilkeedu ayagoo raadinayaan shaqo. shaqooyinka ayaana loo diidayay hab abuuristeeda darteed iyo isheeda qalloocan, ilaa ay aqbashay naag rabtay inay guriga uga shaqaydo. hooyadaana wax shaqaa ma aysan diidayn wiilkeeda wax ay siido si ay u hesho, waxayna ku riyoonayday inuu wiilkeedu gaaro shahaadooyinka midda ugu sarreyda. saqiirkii ayaa weynaaday, wuxuuna gaaray sannadii 6 oo cumrigiisa ah. hooyadiina waxay go'aansatay inay ku darto madaraso, maalin kastana waxay gaarsii jirtay madarasada. muddo ayayna joogtay ayadoo fiirinayda wiilkeeda dhaqdhaqaaqiisa oo isbedelay, wuxuuna bilaabay inay qalbigiisa ka buuxsanto cuqdad iyo inuu hooyadiis nacaayo. mar kasta oo madarasada ka yimaadana bannaanka ayuu u cararayay isagoo hooyadiis ka dhuumanaya, wuxuuna ka yaxyaxayay isha hooyadiis oo qalloocan. saaxiibadiis ayaana ugu wici jiray wiilkii cawra, wayna dhibi jireen oo way ku caayi jireen mar kasta ayagoo ku qoslaya. waxaana ku weynaaday wiilkan qalbigiisa nicitaan iyo caasinimo aad u fara badan. hooyada ayaana ahayd mid mar kasta la xanuunsan murugo iyo kurbo, waxayna nafteeda ku qanci jirtay waxaanu inay ciyaalnimada tahay ayna ka fududaa doonaan markii uu weynaado. laakiin xiqdigan iyo nicitaankan ayaa la weynaaday da'diisa intay weynaanaydo, wuxuuna siyaadsanayay caasinimo iyo cararid. wayna ka taxadarayda wax walba u baahan yahay ayay siinayda ilaa uu gaaray heer jaamacadeed, mana aysan kala kulmayn waxaan adayg iyo caasinimo ahayn. mar ayuu u yeeray wiilkanu hooyadiis asagoo ku yidhi kelimooyin ay indhuhu la ooyeen, wuxuuna ku yidhi hooyoy maxaadan la dhimanayn, waxaad ku noqotay cumrigaygoo dhan mid dadka hortiisa igu ceebaysa. laakiin hooyadii way xambaartay hadalkaas, dhoolla caddayn ayayna ka muujisay murugadeeda, waxayna nafteeda ka tiri weynow wiilkaygiyow, indhahayga qabowsigoodiyow iima bannaana waxaan ahayn inaan ku cafiyo. ilaa uu wiilkanu jaamacadda ka baxay uuna noqday qof muhiim ka ah dadka agtooda. wiilkan ayaana go'aansaday inuu dalka dabadiisa ugu safro waxbarasho. markaas laga bilaabana waxaa ka go'day akhbaartiisa. hooyadaana waxay la nooleed walwal ay ka qabto wiilkeeda, iyadoo qalbiga ka xanuunsanayda oo ka gubanaysa ayay ugu ducaynaysay tawfiiq iyo hanuun. hooyadiina xaaladaas ayay iskaga sugneed ilaa uu weynaaday da'deeda oo ay noqotay waayeel. inta badanna waxay ismoodsiinayday wiilkeedii oo yar oo horteeda ku cayaaraya. wiilkeedii ayay u hilowday, mar kastana waxay ku degdegi jirtay inay sawirkiisa fiirsato. indhaha ayayna ka buuxsanayday iyadoo dhunkanayda. waan dhammaystirmayaa markaad ii soo laabato wiilkaygiyow, waan kuu hiloobay in badan ayay dhahayda. laakiin wiilkeeda xaaskiisa ayuu kula damaashaadayay magaalooyin kale, asagoo hadba magaalo ula guuraya si ay u dalxiisaan, ilaa uu khabar uga yimid saaxiibadiisa mid ka mid ah. waxaana la sheegay inuu guursaday oo uu helay 2 gabdhood, haddana uu ku nool yahay Ameerika. hooyadii waxay go'aansatay inay iska gaddo waxay haysoo dhan. xoogaa lacaga ayay diyaarsatay, waxayna u safartay si ay u aragto wiilkeeda, si ay farxad ula soo qaadato ilmaha ay ayeeyada u tahay, iyadoo u wadda xoogaa hadiyad ah. waxayna soo gaartay gurigiisa dhibaatoosho badan kadib iyo daal badan. albaabkii ayay soo garaacday, waxaana ka furtay xaaska wiilkeeda albaabka. markii ay ogaatay inay tahay ninkeeda hooyadiis, way ku faraxday, wayna soo dhaweyday, waxayna soo geliday guriga. markuu ninkii imaaday ayay u sheegtay hooyadiis inay imaatay. wiilkii ayaa kacay, hooyadiisna wuxuu ku qaabilay meel qabow ah oo aan wax naxariisa iyo gabaad ah lahayn. wuxuuna aaminsanaa inay xumaanteedii iyo ceebteedii la soo daba gashay iyo muuqaalkiisa uusa jeclaysan. wuxuuna ku yidhi maxaad iigu imaatay halkan? miyaanan kaa soo cararin? maxaad iga doonaysaa aniga? wuxuuna ka dalbaday ama uu amrayba inay safarto, uusana doonayn wejigeeda inuu mar dambe arko. sidaas ayuu noqday qaabilidda wiilkan hooyadiis oo uusa arkin muddo sannado ah. hadalkan ayaana hooyadii miskiinta ahayd ku noqday biriq oo kale, mana aysan awoodin inay sii joogtay. way ka baxday wiilkan gurigiisa,
waxayna ku dhowaatay inay dhulka ku dhacdo murug awgeed. Kadibna waxay u laabatay waddankeedii si ay ugu noolaato kaligeed, waxayna deris la noqotay murugooyin badan oo waxay dhadhamisay qaraarka xanuunka. Waxaana marayeen maalmaha iyo sanadaha, waxaana beddelayeen xasuusaha iyo dhacdooyinka wiilkeeda. Damiirkiisa ayaa soo laabtay, wuxuuna dareemay dembi weyn oo ah caasinimadii hooyadiisa. Wuxuuna go'aansaday safar si uu u raadiyo oo ay uga cafido dhammaan wixii uu ku sameeyey. Waxaa kadis ku noqotay hooyadiis inay ka tagtay gurigiiba. Deriskeedii ayuuna weydiiyey hooyadiis meesha ay aaday. Mid ka mid a deriskii ayaana u sheegay meesha ay deganeed. Wuuna degdegay si uu u tago meeshaas. Wuxuuna tegey guri cidlaa oo aysan joogin cidna. Deriskii ayuu weydiiyey, waxayna u sheegeen inay dhimatay naagtaasu 5 maalmood ka hor. Deriska mid ka mid a ayaa wiilkan siiyeen dardaaran ay hooyadiis uga tagtay. Wuuna soo qaatay asagoo qoomamaynaya, gacmo aan ruux lahaynna ku qabanaya. Wuuna furay si uu uga helo kelimooyin ay baddu u dhowaanaydo inay daadato sida dhiigga. Hooyadu waxay ku leedahay dardaarankan dhexdiisa: wiilkaygii keligiis ahaayow, aad ayaan uga xumahay argagaxaaga, laakiin waxaa qalbigayga ku jira wax aanan cidna u sheegin. Adiga ayaana ahaa doona qofka kaliya oo ogaada. Waxaa badnaa jacaylka aan kuu qabo wiilkaygiiow. Waxaana jeclaa inaan ku noolaado agtaada weligay iyo inaan ku dhinto hortaada. Laakiin rabitaankaaga ayaa noqday inaad iga fogaato. Maxaa yeelay waxaad ka khajilayday ishayda qalloocan. Laakiin waxaan kuu sheegayaa arrin. Markii aad yareed ayuu ku qaaday daad khatar ah. Il ayayna wax kaa gaareen. Mid ka mid a indhahaaga araggoodana waad weysay. Waxaan uga shallaayay oo ugu saamoobay si aad u daran. Mana aanan ka raali noqon inaad sidaas ku noolaato, anigoo diidan inaad hal ila la noolaato oo ay saaxiibadaadu kaa cararaan. Qalliin aan maray oo 2 maalin igu qaatay oo aan dhib badan ka maray. Kadib ishaydaan iga maqan ayaan adiga ku siiyey. Welina waxba kama aanan qoomamayn. Waxaana sharaf ii ahayd inay wiilkayga indhihiisu dhammaystiran yihiin. Hooyadaana aad ayay kuu jeclayd. Markii uu dhammeeyey wiilkaanu fariintaas akhrinteeda, ayuu xabadka ku dhegsaday, wuxuuna ooyey boohin aad u daran, asagoo aad uga qoomamaynaya wixii uu sameeyey oo kibir iyo caasinimo iyo dembi ahaa. Dhibkaasoo dhanna hooyadii way xambaartay oo inay isheedii weyday ah iyo inay bulshadii oo dhan ka kala cararaan iyo nicidda uu nacay wiilkeedu. Wiilkeeda dartiis Allah u naxariisto maamadaase. Aan ilaalinno waalidiinteenna. Aana ka fakarno waxa aan samaynayno intuusan waqtiga naga tagin ka hor. Waxaa imaan doonta maalin aysan waxba tarayn qoomamo iyo shallayto toona. ducadan aan aamin dhahano. Allahumma a'inna ala birri abaa'ina wa ummahatina. Allahumma fi hayatihim wa ba'da mautihim. Allahumma birran la 'uquqan. Allahumma ihsanan la isaa'ata ilayhim. Allahumma ighfir lana wa lahum wa barik lana wa lahum. Wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin. Haddii aad muuqaalkan dhamaysatay ku salli Nabi Muhammad iyo aalkiisaba sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hana ilaawin inaad muuqaalka like saarto oo sii faafiso, channelkan subscribe saarto oo gambaleelka u furato si ay kuu soo gaaraan wax kasta cusub oo aan soo galino channelkan Mubaarak Khayraat. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Askariyada Amerikaan oo jeclaatay maxbuus reer Ciraaq oo muslima. intaad muuqaalka guda galin ka hor Mubaarak Khayraat follow dheh siina share garay muuqaalka mahadsanid. Filimku wuxuu ku bilaabanaa Amy Cole oo go'aansatay inay ku biirto ciidanka si ay u gudato waajibkeeda wadaninimo kadib markay ka tagtay qoyskeedii iyo magaaladeedii. maalinteedii koowaad ee shaqada ku lahayd xabsiga, hogaamiyaha ayaa baray kooxdeeda qaabka loola tacaamulo maxaabiista iyo guutadeeda sharciyada u gaarka ah ee maxaabiista. wuxuu u sheegay hogaamiyuhu in maxaabiistan loo gooyay muddo 8 sano ah. waxay idin ku waajibay inaad ula tacaamushaan si adag, maxaa yeelay gebi ahaanba waxaad kula jirtaan waa dagaal. wuxuu kale u sheegay inay ka digtoonaadaan khataraha maxaabiista. wuxuu ku yiri waxaad ula tacaamushaan si kasta aad uga ilaali kartaan baxsasho iyo cararid waxaan ka ahayn geeri. booqo page-kan, follow iyo like saar, mahadsanid. wuxuu kale u sheegay inaan lala sheekaysan karin lana dhexgali karin maxaabiista, hadday lagama maarmaan noqotona inaan looga sheekay karin waxyaalaha amniga ku tacalluqa. dhammaan ilaaliyayaasha mid walba wuxuu aaday doorku ku lahaa shaqada ee maxaabiista. Amy ayaa kaalmaysatay saaxiibadeeda waardiyayaasha la ah si ay uga saacideeyaan sababaha amniga. Amy muhiimadeedu waxay ahayd inay ku qabato gacanteeda midigta maxbuuska si uusan u awoodin inuu cararo ama u dagaalamo. Amy ayaa ku haysay gacanteeda midigta maxbuuska, laba kale waardiyayaalna waxay hayeen jirkiisa qaybo ka mid ah si ay u xakameeyaan dhaqdhaqaaqiisa.
laakiin waxaa dhacday si kada ah Amy inay ku qabatay gacanteeda bidixda maxbuuska laakiin isla markiiba wuxuu uga dhiftay afka feer maxaa yeelay wuxuu arkay inay jilicsan tahay oo aad u naxariis badan tahay waxay ku guuleysteen inay xakameeyaan maxbuuskii maalintii ku xigtay maxaa dhacay intani waa horudhac muuqaalka qaybihiisa xiisaha leh way dhiman yihiin loof saar siina shaargare falowna isoo dheh mahadsanid